sida fariimo qoraal loogu xiiso geliyo qofkaaga. Markaad xiriir leedahay, inaad u muujiso lamaankaaga inaad jeceshahay iyaga waxay xoojin kartaa xidhiidhkaaga oo ka dhigi kartaa inuu dareemo kalsooni dheeraad ah. Haddii aanad qof ahaan wada joogin, waxay noqon kartaa wax yaroo iska adag, laakiin nasiib wanaag waxaa jira siyaabo badan oo aad ugu sheegi karto lamaankaaga ama saaxiibkaaga inaad iyaga jeceshahay qoraal ahaan si aad u ilaaliso sii socoshada xidhiidhkaaga. Waan kuwan 10 arrimood ee aad u baahnayd adiga. 1. Waxaad u qori kartaa erayadan: anigoo meel iska jooga ayaan waxaan maqlay cod, markaasna adigaan kugu soo xasuustay, waxaana bilaabay inaan kaa fikiro. waxaad u sheegi doontaa inay jirtay waxyaabo ku soo xasuusiya qofkaas, niyaddana uu kaaga taagan yahay adiga. waxaad soo qori kartaa erayo badan sida kuwan oo kale: waxaan akhrisanayay buug, laakiin markasta aan aqriyo xaraf, waxaan soo xasuusanayay erayadii quruxda badnaa ee aad ii soo qortay adiga. Si kastaba ha ahaatee, u dir qoraaladan sida ugu macquulsan oo iyagu sheegaya inuu ku jiro maskaxdaada, aanad ka ahaan karayn. wuu ku farxi doonaa inaad ka fikiraysid, wuxuuna u malayn doonaa inay tahay jacayl heer sare ah. 2. ammaan u qor sida tan: adiga mar walba waad iga qoslisaa, waxaad tahay farxaan oo aan laga daalin sheekooyinkiisa, waxaad tahay qof farxad isiya aniga. u sheegaa habkaad ii siiso, waxaad iiga sheekaysaa waxyaabo fiican oo iga qosliya aniga. waxaad u sheegtaa waxyaabo adiga aad ku jeclaatay, taasoo noqon karta muuqaalkiisa shakhsiyadeed ama sida ay u weyn tahay saaxiibnimadiina, xitaa haddii ay tahay mid aan kala soc lahayn. tani waxay ka dhigi doontaa inuu dareemo wanaag inaad ka fikirtay isaga. intaa waxaa dheer, in la sii ammaano waana hab wanaagsan oo lagu tuso inaad jeceshahay iyaga, xitaa markaadan arki karin isaga shakhsi ahaan. u sheeg wax sidaan oo kale ah: mar walba waa taqaanaa sidaad iga qosliso, waxaad u ekeed mid aad u qurux badan shalayto. 3. u sheeg inaad ka fikiraysa iyaga. ma joojin karo ka fikirkaaga, bliis iga daa maskaxdeeda aad ku dhex ordaysid mar waliba. adiga waxaad u horaysaa wax kasta aan ka fikiro aniga. ma kuu sheegaa halka dhib aan maalmahan isku arkay? waa inaan dhoolla caddeeyo markaan ku soo xasuusto adiga. ma joojin karo inaan xasuusto wejigaaga quruxda badan ee Allah ku siiyey adiga. maanta aad ayaan kaaga fikirayaa, ma ii sheegi kartaa sababta? haddii ay tani qabsatay dhammaan maankaaga, ogaaw inay tahay fursad loo baahan yahay inay ogaadaan. dadku aad bay u jecel yihiin inay maqlaan inay jiraan dad ka fikiraya iyaga, daneeya iyaga waqtiyada aysan la joogin. markasta uu niyaddu kugu soo dhaco, muhiim ahan inay online ahaadaan, keliya fariimo noocaas oo kale ah u dir adiga. 4. ereyo kaftana u qor. ma diri kartaa ereyo markaad ku dhahdo ka qoslin kara iyaga, xitaa haddii aad ku dhahdo waan ku jeclahay. muhiimaddu waa inaad awoodi karto inaad la kaftami karto adiga, una qori karto ereyo kaftana. 5. oo la wadaag sheekooyinkaaga jacayl, kana dhig ciwaankaaga midka isagu khuseeya. tusaale ahaan, ma jeclaan lahayd inaan kaaga sheekeeyo sheekadayda jacayl? okey, ma dhegaysanaysaa? waayahay, aniga marka hore wiil ayaan jeclaaday ama gabar ayaan jeclaaday. dabcan hadba kaa tahay adiga. aad bay ii soo jiidatay. midda aan ku xishayna waxay ahayd inuu ahaa qof daacada, qalbi wanaagsan lahaa. isagu ma hadal badnaa ama iyadu ma hadal badnaa, wayna xishood badan tahay. sidoo kale waa qof aad u deggan. riyooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu helo gabar wanaagsan ama wiil wanaagsan oo daacad u ah iyaga, sidoo kalena leh qalbi wanaagsan sidiisa camal. mataqaana halka mida isagu lahaa waxa waa qof Ilaahay siiyey akhlaaq iyo dabeecad wanaagsan. aniga qofkaas aad baan uga helay, waanan jeclahay, laakiin nasiib darro, qofkaan uga sheekeynayo isla qofkaas waa qofkaan ka helay aanan jeclahay aniga. tani waa tusaalaha ugu fiican aan kugu sheegi karay, kuguna fahansiin karay. waan waayay waddo kale aan kugu sheegi lahaa. dabcan tani waad raaci kartaa si aad uga yaabiso isaga. waxaa laga yaabaa qofkaas inuusan dulqaad lahayn ku dhagaysta adiga, marka fariin ahaan ugu sheeg. wicitaanka iyaga ayaaba ku soo degdegi doonaa. 6. fursad ma heli kartaa aan ku soo wareegnaani adiga. macquul in qofkaasi kaa fog yahay, laakiin waad dhihi kartaa. waxay furfuraysaa wada sheekaysiga. u qor sidan oo kale: guriga ayaan joogaa wiigan, mana lihi wax shaqooyina ama wax barashaa.
dhammaantood waa fasax. Marka waxaan jeclaystay inaan soo wareegno oo aan magaalada ku soo ciyaarno ani adiga. Muhiim maahan in lagu ogolaado ama lagu diido, balse ugu yaraan 10% niyadda ay kugu haynayaan. Waxaa laga yaabaa inay kugu adag tahay adiga, si waad ka gudbi kartaa qodobkan. Qasab maahan dhammaan talooyinkan oo dhan inaad wada samayso. Inta ka samayn karto isticmaal. 7. waxaad u sheegi kartaa inaad u xiistay adigoo isticmaalaya erayadan: waan kuu xiisay, ma sugi karo intaa ka imaanaysid, waan isla kulmi doono. Wax badan ayaan ku tabay, aragtidaada waan u xiisay. Intaas marba mid u dir iyo inta kale aad garanaysid adiga. Waxaa laga yaabaa inaad masaafo dheer isku jirtaan, ama laga yaabaa inaadan waqti u helin inaad dhowaan la kulanto. Si kastaba ha noqotee, haddii aad u sheegto inaad u xiistay isaga ama iyada, waxay fahmi doonaan inaad jeceshahay oo aad daryeeli siinayso iyaga. Waxaad odhan kartaa wax sidaan oo kale u qoran: ma sugi karo inaan mar kale ku arka adiga. Aad baan kuugu xiisay, waxaan jeclaan lahaa inaan ku arka adiga. Waqtigaad ku qaadataan internetka u sheeg inaad ku farxayso. Waxaad u qortaa erayo qoran sida tan: kulankeena xalay ee aan waqtiga badan ku qaadanay aad buu u fiicnaa. Wuxuu ahaa waqti fani ah. Waan kaaga mahad celinayaa farxaddaad ila garab taagan tahay aniga. Haddii aad samaysaan wax cusub ama aad si dhab ah ugu qanacday waxyaabahan, ogow inaad xiiso ku beeraysid qofkaas. U dir fariimo ogeysiinaya isaga dareenka dhabta ah. Tani waxay si gaar ah u tahay fikrad wanaagsan. Haddii labadiinaba aad isfahmi kartaan, dareenkana uu kula fahmi doona adiga. 8. u dir subaxii fariimo qurux badan. hadduu xiriirkaagu jiro uuna yahay mid wanaagsan, kuwan ayaa ku habboon: subax wanaagsan babe, waxaan rajaynayaa maalintaada inay cajiib noqon doonto sidaad adiguba cajiib u tahay. mar kasta uu ku soo dhaco maankaaga, u dir fariimo wacan oo ka kala duwan, halkii uun ha ku soo celcelin. waxaad odhan kartaa: subax ka duwan subaxyadayda kale, waxaan ku soo toosay anigoo niyadda kugu haya adiga, mana sugi karo intaa iga imaanayso. aad ayaan kuu tabayaa. subax wanaagsan malabay ama boqorkayga, istiil boqoradayda. waxyaabo sidaan u macaan u dir subaxii, wax badan ay ka caawin doontaa jiritaanka xiriirkaaga. Nambar 9. weydii waxyaabo romaansa, laakiin micnaheedu maahan caado ka dhigo. waqtiyada qaar oo keliya ku tuuro. haddii aad ku qanacsan tahay, waxay noqon kartaa hab xiise leh oo aad wax ku barato. u dir fariimo qoraal xamaasad leh si aad u hesho maankooda. tani waxay noqon kartaa hab xiiso leh oo loogu dejiyo niyadda. iyo haddii labadiinaba aad masaafo kala joogtaan, romaansiga waa hab xiiso gelin ah, waana hab uu qofka ugu sii xiisi karo wada sheekaysigiina. ku bilow hadalkaaga adigoo dhahaya wax sidaan oo kale: maxaad xidhan tahay hadda? ma doonaysaa inaad aragto waxaan jeclahay markaan guriga joogo? adiga dooqaaga ii sheeg. yacni qof noocee ka heshaa? ma jeclaan lahayd inaan maalin gacantaas qabsanno oon wada aadno qado? ma jeclaan lahayd inaad aragto labiskaan xidhanahay maanta? maxaad samaysaa markaad soo toosto subaxii? adiga ma jeceshahay jawiga roobaadka oo daruuruhu yihiin madow, udgoonkuna yahay mid aad u caraf badan? maxaase samaysaa waqtiyadaas? intaan haddii aan kasii badiyo waxaan ka baqayaa inaad shaxaari noqotaan. intaas ayaan ku ekeeyey, wixii kale waa idinka xaggiina. Nambar 10. waqtiga ugu dambeeya habeenkii, waxaad u qori doontaa erayo qoran sida tan: habeen wanaagsan macaani, waad og tahay ma sugi karo inta subaxa laga gaarayo. riyo macaan, waan ku jeclahay. habeen wacan, si fiican u seexo, iguna riyooyaa. qof kale haddaba ma ku riyoon kartid. adigoo nabad qaba allaha ku soo toosiyo macaani. u ogolow inuu ogaado isagu inuu yahay qofka ugu dambeeya ee maskaxdaada ku jira ka hor inta aadan seexan oo aadan bixin. u dir qoraallo aad u rajaynayso riyooyin wanaagsan iyo waxyaabo inta ka badan. wuu seexanayaa isagoo niyadda kugu hayo, wuxuuna ogaanayaa inaad danaynayso adiga oo aad ka fikirayso. taasina waxay siinaysaa hurdo wanaagsan. saaxiibayaal, muuqaalka intaas ayaan ku soo koobayaa. igu sharfa wixii aan idinka mudanahay. inaagu soo biir, waxay nagu dhiirigelinaysaa inaan soo badiyo muuqaaladan oo kale. saaxiibayaal, mid la mid ah intaan muuqaalkan oo kale ku kulmi doono. nabadgelyo.